بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada saaka barnaamijka aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah militariga Israa'iil oo qirtay in 20 askari looga dilay tiro intaas ka badan looga dhaawacay Mareyka qasa gaar ahaan dagaaladii ugu dambeeyay iyadoo la sheegayo in xaalad adag Israa'iil ay ku haysato ciidankeeda furimaha hore ee dagaalka militariga Israa'iil oo ka falcelinaya weeraradan lagu laayay askartooda ayaa xalay geystay mid ka mid ah duqeymihii ugu xoogganaa waxaana la sheegayaa in duqeymahan ay ahaayeen kuwii ugu ba'naatani markii dagaalku uu bilowday Masar oo si adag indhaha ugu shidatay Israa'iil haddaba muxuu yahay hadalkan cusub ee culus oo ka soo yeeraya Qaahira ee ka dhanka Tel Aviv madaxweynaha Faransiiska ayaa si cad u muujiyay walaaca reer galbeedku ay ka qabaan waxtarka gantaalada Iiraan ee dhawaan sida xun roobka looga dhigay Israa'iil isagoo arrimahan ay kala hadlay madaxweynaha Iiraan diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Suudaan oo duqeymo ka geystay goobo ay ku urursanaayeen maleeshiyaadka RSF ee dagaalka xooggan oo ka dhaxeeyo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo da'diisu ay tahay 8 sano jir ayaa ku dhawaaqay inuu u tartamayo doorashada madaxtinimada ee dhacaysa sanadka soo socda isagoo doonaya inuu xukunka sii hayo in ka badan 40 sano oo soo maamulayay wadankaasi arrimaha la xiriira nuclear-ka Iiraan iyo waliba gantaalada warkan waa war aad iyo aad dhiilo u xambaarsan sababtu waxay tahay markii hore Iiraan waxa laga wada hadlayay barnaamijkeeda nuclear-ka laakiin hadda waxa lagu soo daray arrimaha laga wada hadlayo oo cadaadiska lagu saarayo Iiraan gantaaladeeda haddaba maxay tahay sababta wax kale ma ahan waxa la arkay waxtarka gantaalada Iiraan sababtoo ah markii hore waxa la islahaa gantaaladan waa gantaalo Iiraan ay samaysay iyadoo cunaqabatayn ay saaran tahay waxtar badan ma leh laakiin dagaalkii 12 maalmood socday waxa la arkay gantaaladan waxtarkooda gaar ahaan gantaalka Fatax la yiraahdo ee hypersonic ah gantaalka Khaybar iyo Hormashaar oo Israa'iil wacdara ku dhigay gaar ahaan xarumaha militariga iyo goobaha xasaasiga toos intii loogu baagsaday isagoo xagga u gudbin toos meeshii loogu talagalay u baagsaday arrinta marka maxay ka timid marka laga tago in gantaaladaasi lagu duqeeyay Israa'iil dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay mas'uuliyiinta Israa'iil waxay ku celcelinayaan waxay ku tilmaameen qatarta gantaaladan ay leeyihiin waxayna leeyihiin gantaaladan Yurub ay gaari karaan annaga iska daaya Israa'iil laakiin waxay gaari karaan bay yiraahdeen Yurub marka intay goor tahay ha laga hortago wada arkaysaa marka gantaalkan arrintii marka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu kala hadlay madaxweynaha Iiraan mowqifkeedu meel buu u yaalaa hadda ka hor markii la dibacay lagu soo qaaday arrimaha gantaalada oo Steve Witkoff iyo Abbas Araaqji kulamada ay yeelanayeen oo dowladda Cumaan dhexdhexaadinaysay Iiraan waxay tirorta arrinta gantaalada xagga iska dhiga arrimaha nuclear-ka aan ka wada hadalno annaga nuclear-keena ma ahan mid ciidan hubna ma ahan hub nuclear-keena waa mid nabadeed hadda la sheekada waxa lagu soo dari doonaa arrinta gantaalada waliba waxa ka sii daray mid ka mid ah mas'uuliyiinta waddanka Mareykanka ee ku jira Congress-ka Lindsey Graham isagu wuxuu leeyahay haddii heshiis la gelayo Iiraan waa in lagu soo daro inay aqoonsato Israa'iil macnaha qodobada lagu heshiinayo haddii Iiraan la heshiinayo waa in lagu soo daraa Iiraan inay aqoonsato Israa'iil jiritaankeeda Iiraaniinta marka waa dad aqli badan waxay ku leeyihiin nimankan iska hadlayaan iska daaya anaga mowqifkan meel buu noo yaalaa sheekada marka waxay maraysaa markii hore waxay ahayd arrimaha nuclear-ka hadda waxa la yiri waxa lagu soo darayaa gantaalada kadibna Iiraan waa inay aqoonsataa Israa'iil jiritaankeeda haddaba aynu eegno wadahadalkii xalay qadar telefoonka ku dhex maray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo dhigiisa wadankaasi Iiraan Mas'uud Pezeshkian madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron
ayaa waxa uu sheegay in xalay telefonka uu kula hadlay madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian isagoo uga digay muhiimadda ay leedahay in la xalliyo arrimaha ku saabsan barnaamijka gantaalada iyo hubka nuclear-ka iyadoo loo marayo wadahadal. Macron ayaa fariin uu ku qoray baraha bulshada waxa uu ku sheegay in fariimihiisu uu si cad ugu muujiyay baahida loo qabo in Iiraan ay dib ugu laabato miiska wadahadalada si wax looga qabto arrimaha la xiriira gantaalada nooca balastiga iyo barnaamijka nuclear-ka, iyo sidoo kale in dib loo bilaabo howlaha hay'adda caalamiga ah ee tamarta atomikada ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ee gudaha Iiraan. Macron waxaa sidoo kale ugu baaqay madaxweynaha Iiraan in uu si degdeg ah u ogolaado dib u bilaabidda shaqada hay'adda IAEA ee gudaha dalka Iiraan. Iiraan iyo Israa'iil ayaa galay dagaal socday 12 maalmood kaasi oo bilowday bishii Juun 13keedii, waxaana xilligaasi Israa'iil ay weerar ku qaatay saldhigyo military iyo xarumaha nuclear-ka ee Iiraan, waxaana la dilay saraakiil sarsare iyo saynisyahanada nuclear-ka. Iiraan ayaa waxay kaga jawaabtay weerarkaasi gantaalaha nooca balastiga iyo weliba diyaarado drone ah oo ay ku garaacday dhowr goobood oo ku yaala gudaha Israa'iil, waxaana la sheegay inay ka mid yihiin xarumaha militariga. Sidoo kale waxay duqeysay xarumaha xasaasiga sida kuwa sirdoonka iyo kuwa kale ee loogu talagalay dhanka cilmi baarista, dhanka ciidanka, tiknoolajiyadda iyo weliba dhanka nuclear-ka. Kaabayaasha ayaa sidoo kale la burburiyay, gaar ahaan Haifa oo dekada si xun loo duqeeyay. Dagaalka ayaa waxa uu keenay in Mareykanku mar dambe colaadda uu ku soo biiray kadib markii duqeymo uu ka geystay 3 xarumood oo ku yaala gudaha Iiraan, gaar ahaan Fardow, Natanz iyo weliba deegaanka la yiraahdo Isfahan. Macluumaadka ugu dambeeya ayaa waxaa ka mid ah in Tehran ay sheegtay in sidoo kale iyadoo ka jawaabaysa weerarkaasi in ay weerartay dhowr xarumood oo Mareykanku uu leeyahay, gaar ahaan saldhigyada uu ku leeyahay Qatar iyo Ciraaq, inkastoo aysan jirin khasaare ka dhashay duqeymaha Iiraan ay qaaday. Tan iyo xilliga dagaalka uu bilowday, Iiraan waxay si adag u cambaareysay hay'adda IAEA iyadoo ku eedeysay inaysan cambaarayn weerarada Israa'iil iyo Mareykanku ay ku qaadeen xarumaha nuclear-ka. 25kii bishan Juun, baarlamaanka Iiraan ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay in la joojiyo wada shaqaynta rasmiga ah ee ay leeyihiin hay'adda IAEA ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha xakamaynta nuclear-ka. haddaba halkaas waxaa ka cad arrintu inay marayso barnaamijka nuclear-ka intii laga soo tegay gantaalada aan ka wada hadalno. waxaan ka warsugi doonaa Iiraan waxay kaga jawaabta arrimahan. وهاجك حق أفريقيا إنه أجن وكارهان دجال كودك السودان هالكاسي اللي جوصة ورميه إن ديارها دجال كعيدمدا عرك السودان أي ويرين جوبا أي كسر من عيال عيدمدا سيدا ملتيري قطة بران أعرف جوها سيو كيال أجارك الدباح ديان كاسي أو كتسن قبل كجبل رحيب وقوية دارفور سيدا أي شيء جيسو وربعيت محلي جا weeraradan ayaa waxaa la sheegay in ay dhaceen saacadihii la soo dhaafay iyadoo lagu soo waramayo in ay qayb ka tahay tani dagaalka ka socda bartamaha waddanka Suudaan. ilaa hadda ciidamada Suudaan war rasmi ah kama soo saarin duqeymahan. magaalada Jabal Rahiib waa deegaan istiraatiiji oo muhiim u ah isku xirka wadooyinka waaweyn ee waqooyiga Darfur, waxaana halkaasi taga wadooyinka kuwaasi oo la sheegay in isku xiran gobollo kala duwan. dagaalo culus ayaa maalmihii ugu dambeeyay halkaasi ka aloosnaa. duqeyntan ayaa waxaa la sheegayaa in ay qayb ka tahay tillaabooyin ciidamada dowladdu ay ku doonayaan inay ku dhibaan qatarta RSF oo iyaguna toddobaadyadii la soo dhaafay adeegsanayay diyaaradaha drone-iska kuwaas ay ku weerareen magaalada Port Sudan iyo weliba goobo kale. waaga isla wararka Afrika aynu ku soconnay madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni oo 8 sano jir ah 40 sano waddanka xukumayay ayaa waxa ku dhawaaqay inuu mar kale u tartami doono doorashada waddankaasi ka dhici doonta. haddaba aynu eegno warbaahintu arrintan ay ka qorayso. madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni oo 8 sano jir ah ayaa ku dhawaaqay in uu isu soo taagi doono doorashada bisha January ee sanadka 2026 dhacaysa. Museveni ayaa ku shaaciyay musharaxnimadiisa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada isagoo sheegay inuu xiiseynayo inuu mar kale matalo
xisbiga haya talada dalkaasi ee dhaqaaqa iska caabinta qaranka ee magaciisa loo soo gaabiyo NRM doorashada soo socota. waxaa sidoo kale uu sheegay inuu doonayo inuu hirgeliyo qorshe dhaqaale oo gaaraya 500 bilyan oo dollar oo lagu horumarinayo dalka 5 sano ee soo socota, iyadoo wax soo saarka guud ee dalka ama GDP-ga imika hadda uu yahay 66 bilyan sida lagu sheegay xogta wasaaradda maaliyadda. xisbiga NRM ayaa horay 2 jeer wuxuu u bedelay dastuurka si Museveni uu ugu nagaado xukunka. tillaabooyinkan ayaa si weyn waxa ugu hor yimid mucaaradka iyo warada u dooda xuquuqul insaanka, kuwaasi oo ku eedeeyay Museveni inuu adeegsanayo amniga si uu caburiyo mucaaradka isla markaasna isagu uu doonayo inuu is soo saaro. doorashooyinka madaxtinimada iyo baarlamaanka ayaa la filayaa in la qabto horaanta sanadka 2026. fanaanka caanka ah ayaa ugu firfircoon mucaaradka ninka lagu magacaabo Bobi Wine, waxaana uu noqon doonaa tartamaha ugu weyn ee la loolamaya madaxweyne Museveni. Bobi Wine ayaa horay sanadkii 2021 u tartamay xilka madaxweynaha isagoo ku eedeeyay dowladda in ay doorashada musuqmaasuqday isla markaasna laga been abuuray rabitaanka shacabka. Bobi ayaa sanadkan horaantiisii mar kale ku dhawaaqay in uu u tartamayo madaxweynaha isagoo ugu baaqay dhalinyarada, ururada rayidka ah iyo cid kasta oo doonaysa isbedel inay taageeraan dagaalka doorashada lagaga tuuri karo Museveni xukunka. Museveni ayaa dalkaasi soo maamulayay tan iyo 1986. waxa uu ku sheegay barnaamijkiisa dhanka siyaasadda inuu diiradda saarayo soo celinta xuquuqda siyaasadeed iyo tan muwaadinka, isagoo sidoo kale ballan qaaday in uu la dagaalami doono musuqmaasuqa baahsan ee ku dhufta qaybaha kala duwan ee waddankaasi sida hadalka uu u yeeray. waa tahay sheekooyinka ugu dambeeyay barnaamijka gaar ahaan dagaalka Gaza ayaan eegi doonaa, iyadoo Israa'iil la sheegayo inay qaratay ilaa iyo 20 askari in looga dilay dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay Mareykanka Gaza. xagga Gaza aynu eegno. xalay mid ka mid ah duqeymihii ugu xoogana ay Israa'iil ka fulisay Mareykanka Gaza, waxaana la sheegayaa dad aad u fara badan inay ku dhinteen. waxaa wararka ugu dambeeya ka mid ah dad ilaa 70 qof ah in la dilay ilaa iyo shalay waa bareegay, inkastoo haatan la soo warinayo duqeymo inay socdaan, laakiin weli tirakoob rasmi ah lama bixin dadka ku dhintay tan iyo saakay waa bareegay. laakiin waxa la leeyahay xalay lagama seexan Mareykanka Gaza, il iyo baar la iskuma geyn, duqeyn culus ayaana socotay. waxaana wararkaas ay ku darayaan sidoo kale intan ay ku soo aadaysa sida uu qorayo wargeyska la yiraahdo The Times of Israel in Mareykanka uu qorsheynayo in uu kala hadlo wasiirka istiraatiijiyadda Israa'iil oo maanta booqanaya aqalka cad sidii dagaalkan lagu soo gabagabeyn lahaa. xalay kulan dhex maray golaha wasiirada Israa'iil oo Netanyahu uu shir gudoominayay ayaa warbaahinta Israa'iil waxay sheegaysaa in aan la isku raacin wax ajenda ah oo ku aadan dagaalka in la soo gabagabeeyo. wasiirada ayaa qaarkood waxa la sheegayaa dood adag inay dhex martay, kuwana ay si adag uga soo horjeedeen dagaalka in la soo gabagabeeyo, halka kuwa kalena ay sheegayaan inay muhiim tahay in qorshaha Mareykanka laga faa'iideysto si loo soo celiyo dadka lagu haysto Mareykanka Gaza sida hadalka loo yiri. intii doodda ay socotay wasiirka maaliyadda Bezalel Smotrich ayaa waxa uu diiday xitaa Mareykanka Gaza in gargaar uu galo, isagoo yiri waa in laga hortagaa gargaarka inuu gudo Mareykanka Gaza. waxaa lagu soo waramayaa in wasiirada qaarkood ay ku adkaysanayaan dagaalka inaan la joojin. warbaahinta Israa'iil sidoo kale waxay leedahay Netanyahu xitaa qudhiisa dagaalka in la soo gabagabeeyo kama go'na sida hadalka loo yiri. haddaba intaan idin soo gudbin warbixinta la xiriirta Masar warka ka soo yeeray, aan eegno war militariga Israa'iil ka soo yeeray oo ku aadan qasaaraha ciidankooda soo gaaray. wargeyska Haaretz ka soo baxa Israa'iil ayaa waxa uu daabacay in ugu yaraan 20 askari oo ka tirsan militariga Israa'iil lagu dilay gudaha Mareykanka Gaza 29 maalmood ee la soo dhaafay. waxaa la sheegay muddadaas inay tahay muddadii dhimashada ugu badanayd oo intaasi ah ciidanka Israa'iil ay soo gaarto. tirada dhaawacaya intaas ka badan waxaana la sheegay askartaas inay ka mid yihiin 7 askari oo hal meel lagu dilay, kuwaasi oo la sheegayo in gaariga ay ku jireen oo ahaa nooca gawaarida gaashaaman in lagu dhex gubay. wargeyska Haaretz waxa uu muujiyay in xilligan ay tahay xilliyadii dagaalka ugu adag ciidanka Israa'iil loo soo gudboonaaday. warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in
dadka ugu dambeeyay ee la dilay uu ku jiro sarkaal sare oo lagu magacaabo Israel Nathan Rosenfeld oo lagu dilay qarax ka dhacay waqooyiga Gaza xilli uu ku guda jiray howlgal military waxaana la sheegayaa in uu ka mid ahaa askarta 20ka ee lagu dilay marka Gaza dhowr iyo 20kii maalmood ee la soo dhaafay tiradan kordhaysa ayaa muujinaysa ay wargeysku leeyahay sida dagaalka uga sii socda marka Gaza qatarta uu gelinayo askarta Israa'iil iyadoo la sheegayo in xogaga iska caabinta ee Falastiiniyiintu dardar ay geliyeen howlgallada ay wadaan tiradan ayaa sidoo kale waxay ku soo beegmaysaa xilli cadaadis dhanka siyaasadda ah iyo mid bulshada uu ka jiro gudaha Israa'iil gaar ahaan dagaalka oo la sheegayo in uu marayo heer aad u adag waxaana lagu soo waramayaa in duqeynta Israa'iil ay fulisay saacadihii la soo dhaafay in ay qayb ka tahay iyadoo Israa'iil la sheegayo in furimaha hore ee dagaalka lagu xanuujiyay war kale oo arrimaha la xiriira wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Badr Abdulcaati ayaa ku eedeeyay Israa'iil inay jibisay heshiiskii hore ee xabad joojinta ee marka Gaza isla markaasna ay dib u bilowday duqeymo dhanka militariga iyadoo aan wax codadaara bixin taas oo keentay buu yiri korokac ku yimid xiisadda gobolka Badr oo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in uu si adag u cambaareynayo weerarka Israa'iil ka wado marka Gaza isagoo tilmaamay in Tel Aviv ay si cad u jabisay shuruudihii heshiiska xabad joojinta isla markaasna kaligeed go'aansatay inay dagaalka dib u bilowdo waxa uu ku baaqay in si degdeg ah dib loogu laabto wadahadalada isla markaasna la ilaaliyo heshiisyadii hore hadalkan ayaa waxa uu yimid xilli ciidamada Israa'iil ay amar ku bixiyeen in dadku ay iskaga baxaan dhowr xaafadood oo ku yaala waqooyiga Gaza sida Jabaaliya iyo qaybo badan oo ka mid ah marka Gaza wararka caafimaadka gudaha laga helayo ayaa waxa ay sheegayaan in dad aad u badan shalay ilaa iyo xalay lagu dilay marka Gaza Masar waxay qayb ka ahayd dhexdhexaadiyaasha iyadoo kaashanaysay Mareykanka iyo Qatar waxaana la sheegay xabad joojintii la gaaray 19 bishii January ee sanadkan in Netanyahu uu ka baxay 1 bishii March iyadoo lagu soo waramayo in wadamada dhexaanta geysana arrintaasi ay si weyn uga caroodeen waxaana Masar warkeedan ka soo yeeray la aaminsan yahay inuu yahay tilaabooyin lagu tilmaamayo in Israa'iil loo muujiyo in ay tahay cidda nabadda hortaagan xaaladda gobolkana qatar gelin karta sida loo yiri warbixinada sida lagu sheegay warbixinada ugu dambeeya ee wararkan waaga inta ayaan kusoo gabagabeynayaa saaka barnaamijka xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana mahadsantihiin mar kale nabadgelyo